mudana gudoomiye mudanayaal marka hore waxaan isleeyahay qodobkan la xiriira arrimaha maanta ka socda xamar la xiriira doorashooyinka iyo xukuumadda hadda jirta ee federaalka madaxdeedu sida ay wax u wadaan inaynu halka kaga hadalno maanta waxaan isleeyahay waa arrin loo baahan yahay waqtigeediina timid waxaan rabaa inaan xoojiyo oo sikingareeyo mudanayaashii hore intii ay sheegeen oo ah inay jirto dastuurkii in la jabiyey marka la isku soo daro dhammaan haddii ay tahay arrinta xeerarka ka socda golaha shacabka iyo waxa xamar ka socda dhammaantood waxay isugu soo ururayaan dastuurkii ku-meel gaarka ahaa ee lagu heshiiyey oo la rabay in la dhammaystiro oo xukuumadda hadda joogtaa ka gaabisay oo muddo soo jiitamayey jabintiisa qodobo dastuuriya in la jabiyey hadday tahay xeerarkan la samaynayo oo ah arrinta matalaadda gobolka banaadir ama muqdisho arrinta broseska doorashooyinka oo qorshaha hadda uu soo bandhigay guddiga ku-meel gaarka ee doorashooyinka hadday tahay asteynta kuraasta hadday tahay qoondada haweenka dhammaan waxaasoo dhan marka laysku soo daro waxaa muuqata inay ku socdaan hab aan waafaqsanayn dastuurkii dalka ee ku-meel gaarka ahaa taas marka haddii ay timid aniga waxaa ii muuqda guddoomiye waan soo jeedinayaa laba arrimood labada arrimood waxaa weeye kow broseska hadda socda iyo sida wax lagu wado puntland inay qaraar ka qaadato inaysan qayb ka ahayn hadda waxaa socda broses waxaa oo dhan waxa loo marayaana waxaa weeye sababtii doorashadaas looga dhigi lahaa mid lagu soo noqdo haddii marka taasi ay muuqato waa in la joojiyaa oo aynu soo saarnaa qaraar puntland ay ku joojinayso inaysan ka mid ahayn broseska socda hadda haddii ay tahay shirka lagu baaqay iyo haddii ay tahay xiriirka kale ee siyaasiga ahba intaas kadib halkan guddoomiye waxaa jirtay shirkii wadatashiga ajendadeenu ku jiray waxaa la sheegay oo in badan soo socday oo xukuumaddu mar walba qoraal soo saaraysay oo ay saxaafadeed soo saaraysay aragtideeda sida ay u aragto khalabaadka socda dadkii oo dhan baa la isugu yeeray reer puntland golayaashii dowladda dhammaan golayaasha xubnaha wixii ka ahaa in laysaga yimaado arrintaa laga tashaday waa laga tashaday dareenkii laga qabay iyo mowqifkii puntland halkaasaa laga soo saaray waxaa ku jira qodob odhanaya haddii wax alla waxaa socda iyo sida wax u socdaan la joojin waayo oo dastuurka dalka loo soo noqon waayo oo la wada tashan waayo oo nidaamkii wax lagu dhisay oo ahaa federaalka iyo soomaali inay wada tashato puntland hormuudka u ahayd oo naf iyo maal ku bixisay ay shaqayn weydo puntland waxaa u bannaan iyadoo dastuurkeeda raacaysa inay masiirkeeda ka tashato taas waxaan qabaa in la joogo innagaaba isku badbaadinayna maanta maxaa jira waxaynu u jeednaa dowladnimadii in la burburinayo nidaamkii federaaliga ah in la burburinayo kursi keliya in la helo dantu ay tahay waxaa tusaale inoo ku filan keliya waxaynu aragnaa golihii shacabka waxa ka socda iyo khilaafka dhexdiisa ka socda sida wax loo wado waxaynu aragnaa golihii aqalka sare waxa ka socda baynu aragnaa xeerarkii innagu hadda aynu aaminsannahay qaabka ay wax ku socdaan inay xataa sharci darro yihiin baynu aragnaa iyada laftirkeeda sida wax loo maamulayo iyo in la bedelayo iyo waraaqihii guddoonka aqalka sare ay ka soo saarayeen haddii marka mas-uuliyaddii madaxda federaalka saarneed ay iska hindhatireen oo aysan iyagu u jeedin oo dalkan inay isku hayaan aysan iyagu u jeedin waxaan qabaa in ay joogto inaynu dib u fiirino masiirkeenna xukuumadda puntland oo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku ay hogaamiyaanna inaynu go-aankeenna ku darno inay la yimaadaan go-aan dib looga tashanayo ka mid ahaanshaha waxa hadda socda aad iyo aad baa u mahadsantihi